بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين runtii sharaf weyn iyo qiimo weyn bay tahay inaan caawa halkan madashan aan goobjoog ka ahaado intii aan dalkan joogay UK waa runtii madalihii ugu qiimaha badnaa ee aan la kulmo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa bulshada UK ee reer Somaliland khaas ahaan bulshada reer London sida sharafta leh ee karaamada leh ee wanaagga leh ee kalgacalka leh ee walaaltinimada leh ay soo dhaweeyeen runtii waan idin hayaa abaalkiina ma gudi karo aad iyo aad baan idin salaamayaa insha Allah waad salaamantihiin intii aan joogay UK waxaan halkan runtii kala kulmay soo dhaweyn qiimo badan oo runtii de soo dhaweymuhu iyo martigelinuhu kolka xaggan loogu yimaado waxa laga yaabaa inayna kolka halkan ay joogan ay ka qiimo badan yihiin waayo dadka halkan ku nooli waxay la noolyihiin marxalad ka duwan marxaladii dalka iyo qiimihii aan ku noolayn waa dad runtii aad dadaalkooda aad arkaysa inay time-ka la baratamayaan oo time-ku qiimo ku leeyahay oo runtii dadaalka qaranka halkan ay ku nool yihiin iyo dadaalka bulshada ay la nool yihiin ay bixinayaan mid la mida bixinaya runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan bulshada caynkaas ah reer UK oo markii hore aan aragtideeda ku jirin aan la kulmo waxyaabaha qiimaha weyn ii yeelay runtii aan halkan bulshada reer UK kala kulmay waxa ka mid ah ee ku arkay kolka halkaa la joogo dadku perception kale ka aaminsan yihiin dadka qurbaha xagga masaajidada iyo cibaadada runtii dadkani waa dad kaga horeeya dadkii dalkii joogay runtii waxaan aad iyo aad u xasuustaa annagoo eedaanka maqlayna in la yidhaahdo waa la eedaamay bal ha la aqiimay suga waa la aqiimayo kolka la aqiimo waxaa laga yaabaa in salaada badhiyadoo ay tegeen masaajidka soo gasho laakiin halkan waxaan kula kulmay bulsho iyadu wada imaama mar masaajidka wada gelaysa mar imaamka mar la wada xidhanaysa runtii aad iyo aad baan ugu qiirooday oo waxaan sharafoon idin hayno waa wanaagga u baahan in bulshada reer Somaliland iyo dadkii dalka jooga la gaadhsiiyo dadka halkan jooga sida cibaadada iyo diinta ku yihiin way jiraan runtii way dhici kartaa meel walbana way taalaa dalkeenni bay dhibaato halkan ay taalaa laakiin majority-ga dadka halkan jooga waa dad runtii ehludiina oo cibaadada ku wanaagsan intii aan arkay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan la kulmo bulshada reer Somaliland oo iyaguna dadaalaya oo shaqaysanaya oo qofku waqtigu ku adag yahay waxyaabaha runtii aan aad ka uga helay waxa kamid ah qofku wanaagga iyo kalgacalka iyo soo dhaweynta ay dadka u hayaan saacada yaroo time-ka helo ayuu inuu ku soo arko ku soo salaamo kula soo fadhiisto kula sheekaysto ayuu ku dadaalayaa waa qiimo weyn aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa waa ku sharfantihiin runtii way idinka muuqataa halgankii iyo aasaaskii aad ku aasaasteen Somaliland iyo halgankii aad ka qayb qaadateen halkan uu ka muuqdaa waxaan idinku leeyahay waxyaabahan u baahannahay bulshada halkan inay ku dhiirigelino waxa ka mid ah ee aan ku arkay inay horumarrada waaweyn ee dalka ka socda hadday tahay ganacsiga hadday tahay siyaasadda inaad qayb ka qaadataan waxaan aad iyo aad u arkay halkan intii aan joogay oon isleeyahay aad ku dhiirigelisid bulshada reer Somaliland ee UK ku nool inay ka qayb qaataan ganacsiga qolooyinka reer koonfureedku amba reer Muqdisho amba Soomaaliya waxaad moodaa inay naga wanaagsan yihiin sababtu tahay waxa laga yaabaa individual baynu inagu u soconnaa bulshadana reer UK amba reer qurbuhu waxa laga yaabaa in individualism qof waliba horumarka isagu uu raadinayo oo business furayo laakiin iyagu waxa laga yaabaa inay tobantobaninta isku yimaadaan ay business samaystaan oo horumarku uga fudud yahay laakiin waan idinku ammaanayaa roolka aad muuqda ee aad ka qaadateen waxaynu u baahannahay inaynu siyaasadda halkan aynu ku nool nahay waan ogahay bulshadana reer Somaliland halkan ku nool boqolkiiba 90 waxay aware bay ka yihiin siyaasadda oo maskaxdoodu siyaasadda aad bay ugu furan tahay oo goobtii aad aragtaba waxay kala sheekaysanayaan waa siyaasad waxaan idinku boorinayaa inaad dhalinyaradiina iyo aqoon-yahankiina iyo waxgaradkiina halkan ku nool inaad ku guubaabisaan inay siyaasadda halkan ay qayb ka noqdaan imka xildhibaanka ayaanu yar wada sheekaysanay wuxuu ii sheegay dhowr iyo 30 degme ee ay leedahay London
بريقي هو روح نقول هين هدينو النهاي بلشده halkan iskugu ticaawa ugu yaraan 6 xildhibaan maanta waxa laga yaabaa inaan 2 xildhibaan wax ka badan inaan lahayn waxaan u baahanahay anigoo og marxaladda halkan inay ka duwan tahay marxaladda halkaas oo ay ka adag tahay haddana waa waxaynu samayn karno oo waxyaabaha inta halkan ku arkay wax ka mid ah inagoo bulshadeena Soomaaliyeed iyo Soomaaliland ba aynu ku cusubnahay qurbaha oo 30 sano ugu dambeeyay ba aynu laynoo tiriyo haddana bulshooyinkii hore ee waaweynaaye inaga soo horeeyay Eeshiyaanka iyo Bakistaanka iyo waxa leh waxa laga yaabaa inaynu siyaasadii dhaqaalihii iyo horumarkii iyo dadaalkii aynu kula tartamino waad ugu mahadcelinaya roolkiina waad muujiseen laakiin waxaan leeyahay ka sii badiya inta in ka badan baynu qaadan karnaa tensionka xagga hoose ku haysaan Somaliland aad ugu degtaagaysaan halkanna inta in la geliyo iskaashada oo kiina dhaqaaqaya dhiiri geliyo doorta ayaan idin leeyahay waxaan inta kaga baxayaa mahadnaqiina oonan inta in ka badan aan madaxan ku soo koobi karin waxaan si gaar ah u salaamayaa hablihii halkan ka hadlay iyo dhammaan hablaha oo aan runtii leeyahay malaha inamadu way ku yar turtureeno xaaladda dhabta ah ee ay dareemayaan wax laga yaabaa inay iyagoo ixtiraamaya oo ilaalinaya inay gabadeen laakiin hablaheena waan ku ammaanayaa inay dareenkooda ay nala wadaagaan waxaan idin sheegayaa golaha iyaga wakiilada labadii sanadii barkii aanu joognay annagu waxaanu isku aragno iyo bulshada reer Somaliland dhammaan gudaha dibadba si u arkaan horta way kala duwantay waa xaqiiq weey annagu waxaanu isku aragnaa inaanu ka production fiicnaanayno golihii naga horeeyay kolkaanu eegno marxaladda aanu ku sugannahay golaha Somaliland 82 xildhibaan waxay ka mid yihiin bulshada reer Somaliland bulshada reer Somaliland maanta waa bulsho qaybsan waa bulsho siyaasiyiin ku kala duwan waa bulsho ku aragti kala duwan wax badan ku kala duwan wixii baa anu representation u nahay sida adigu ku kala duwantiin baan anaguna u kala duwannahay laakiin golihii wakiilada ee Somaliland waxaan isleeyahay wax productionkiisu kolka aanu kollay ka tagnana waana la xasuusan doonaayo kolka wax la qiyaasayo waa in wax marjac loo noqdo lagu qiyaasan la helaa min qiyaas kolka la leeyahay golahaas waa cidaasi way fashilantay amba cidaas waxbay qabatay waa in min qiyaas la helaa annagu waxaan isku qiyaasi karnaa waa golihii naga horeeyay anigu waxaan qabaa iyo xildhibaanada inta badan 99% ee golaha iyaga ka mid ah 82kii inaanu wax qabadka iyagu markaanu eegno marxaladdan la soo kulannay wax qabad muuqdo yahay ugu yaraan 17 xeer amba 17 biil baa annagana dhaafay intii 2 sano joognay waxaanu curinay ugu yaraan 3 xeer oo aanu go'aan curinay oo uu ka mid yahay xeerkii runtii ciqaabta oo ah xeerarka ugu qiimaha badan ee qarankani maanta ugu baahi badan yahay waxa laga yaabaa in badan oo idin ka midii ma oga maxkamadaheena xeerarka iyo xeerka ciqaabta lagu dhaqaa inuu yahay kii dawladda siyaad baray haddii aad maxkamadaheena tagtaan waxaad arki doontaan magaca xeerka lagu xukumayo xeerka ciqaabta guud in Soomaaliya ku taalo kaanu wax ka qabanay ee golaha iyagana curiyay ee aanu gacanta ku hayno ee imiga golaha la keenayo ee gudideeda shuruucda ay gacanta ku hayso waa ka aanu isleenahay qaranku wax u taraya waxaanu gacanta ku haynaa oo aanu imiga gacanta ku haynaayo xeerarkaanu ka hayna ka mid ah xeerkii ciidanka qaranka oo maanta aynu ugu baahi badannahay fadhigan ka horeeyay waa jindaha ku jiray fadhigan soo socdana waa la sii arxayaayo waa la sii guhabahaynaya insha Allah waxaan isleeyahay 5 sanadood kadib idinkoo la soo kulmay marxaladaha adag ee qarankeenu maanta la circiirayo wax badan baad qabateen kolkaad golihii ka horeeyay hor intee 15 sano joogay waxa laga yaabaa inaan 40 kontumeeye xeer wax ka badan ayna sameyn 15 sano annagu 17 xeer baan ku baaskay 17 biil baan ku baaskareynay qaarna aan saxeen qaarna golayaasha kala sii dhex socdaan 5 sanadood kadib waad qiyaasi kartaan halku maray haddii marxaladda siyaasaddu degtana waad arki doontaan waxaad leeyahay golaha iyagu waa gole boqolkiiba 99 aan idhaahdo waa 1% wax ka badan waa dad goba dad aqoon leh dad garanaya qiyamkii loo soo doortay wixii loo soo doortay garanaya waxaan leeyahay laakiin waa bulshada reer Soomaaliland waa gartood
sagaashan kaasi wixii ay qabteen bulshadooda uma sheegin laakiin 1% kii hadlay ee saxaafadda aad ka taqaanaan waxa laga yaabaa imka halkan inta fadhida waxa laga yaabaa in badan oo ka mid inay wajiga caawa ugu horeysaba laakiin waxa laga yaabaa shaqadan halka ka wadnaa inay golaha ka socoto marka waxa dileeyahay horta waanu shaqeynaynaa insha Allah guul la waan gaari doonaa qarankeena gaari doonaa waxaan ku soo koobayaa maanta marxaladaynu ku jirno wada socotaan dalkeenni marxalad buu ku jiraa waxaynu ognahay jubta qarankeeni gaadhay waxaynu isweydiinaynaa maanta qarankeeni dhibaatada soo gaadhay maxaa sababay waxa sababay gacmaheennii ku sababnay marka qulubteeni kala jeedsatay marka midnimadeeni liicday markaynu dhinac wada socon weynay waxa timid tan waxaan leeyahay tani waa 10 aynu u baahannahay inaynu wax ka baranno oo u baahannahay inaynu gacmaha isku qabsanno Soomaaliland marxalado ka adag baa halkan soo maray Soomaaliland marxalado ka adag baa halkan soo maray Allahu naxariiste Maxamed Xaashi Cilmi iyo mujaahidiintii iyo Maxamed Xasan Cabdillaahi generaalkeeni baa Allahu naxariiste inaan ku bilaabo heede raalahaada waxaan leeyahay Maxamed Xaashi 40 sanadood halganka ka bilaabay halkan aad maanta joogtaan bay ahayd maalinta waynu ka Itaaliyareyn maalinta hub miinaan haysan maalinta dawladnimadu miinaan haysan maalinta dhaqaale miinaan haysan laakiin gud caynkan oo kale inta isku yimaadeen iyaga iyo afar kale ay 40 sanadood halgankiisa halkan ka bilaabeen inay maanta halka Soomaaliland joogto ay soo gaarsiiyaan waxaan idin leeyahay Soomaaliland maanta idinka idin baahan tahay waxay u baahan tahay inaad midnimo idinku ka turjuntaan waxaan qurbaha runtii waxyaabaha ugu dhibta badan leh ka muuqda waxa kamid ah waa qaybsanahay mid idinka idinku koobanna maaha